sagaal boqol iyo sideed iyo lixdankii magaalada Hargeysa ayaanu isku baranay waxaan u dhiibay heestii la odhan jiray heeraaro jacaylka ayuu halkaas hayadaysaa waa hees caan u qatay oo kuwa soo baxay oo heesa jacaylkaba ka u ahayd marka wada niilay Hargeysa wada joognay fanka ayuu ka mid ahaa nin wanaagsan buu ahaa inuu ahaayo iga taageeraa waxay ahayd marka fanka uu ku wanaagsanaa markii dambe militariga ayuu galay xabad dabadeedna kooxdii buu ka qayb galay dabadeedna sidaas uu ku noqday ilaa uu darajo gaadhay anigaasi wuxuu ahaa in dabeecad wanaagsan oo ammaana oo sharaf leh dadkana u dhexeeya ayuu ahaa ilaa uu ku gaadhay inuu mujirnimo bilayska ah markii dambe qaato oo Hargeysa ka gaadho waadii la odhan jiray idiya aakhiro waa kiga matalayay tuse au toosiyey caligaa baa riwaayada lahaa oo markii dambe reer Jabuuti noqday markii horena militarigana ahaa xilliguu soo galay fanka goormay ahayd 1968 Hargeysa xaafadda Barwa waa tahay waxay ahayd wuxuu soo galay 1968 marka riwaayadihii uu caanka ku ahaa maxaad ka xasuusataa maxaa ka xasuustaa heesoo dhan buu qaadi jiray oo kooxdiisa wuxuu ka mid ahaa dabadeedna wuxuu ka mahaa kooxdii militariga dabadeedna wuxuu ku dambeeyey kooxdii bilayska ilaa uu mitir ka gaadhay waa tahay marka qaybuhu aad ugu fara dhudhuubnaa ma qaybta jilitaanka ma alifaada mise heesaha fanaan heesaaya buu ahaa jiritaankana uu yiqiin aad iyo aad alifaad muu lahayn mu'alif ma ahayn wuxuu ahaa heesaa buu ahaa jilitaanna wuu lahaa jilaabuu ahaa militariga iyo bilayska iyo suuqa intaba uu ka qayb galay nin caana buu ahaa weyn oo qaali ku ah waa tahay marka ruux ceenkee buu ahaa xagga dabeecadda iyo la dhaqanka dadka wuxuu ahaa nin dalasaad leh oo degan ayuu ahaa oo caadiya oo saaxiibnimo wanaagsan buu ahaa oo sharaf leh oo fanka iyo qiimo ku leh fanka iyo suugaantaba qiimo ku leh rag iyo dumarba raali laga yahay been lama sheege sidaasuu ahaa nin weyn buu ahaa taariikh leh waa tahay waayadii u dambeysay marka goormaa kugu dambeysay ood is arataan fanaanka aragtidiisa waxay ugu dambeysay wiigii dhaweyto Hargeysa caadi buu ahaa heesan berigaa hore u dhiibay oo laydhaa jeeraaro ayaa jeeraaro wata sida shibir hilaacdee oo baxsan qaadi jirtay aanu maalintii dhowto uuna xasuusiyo aanu ka qornay anagoo gaari gudihii ku joogno uuna xasuusiyo aanu ka qorno u wanaagsanaadee oo waxaanu ka wada nimi barxadaas bandhigiisii buugga ayaanu ka wada nimi habeenkaas dabeedna gurigiisaanu geynaynay heestaanuna xasuusiyey xusuustaana ninka dhintee barxadaas la odhan jiray buuggiisa markii aanu ka nimi ayaanu iska sheekaysanayna caadi sidaa aan kuu sheegay dee waa caafimaad qabay wax balaayaa kumaan ogeyn